الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaynu soo qaadanay baabu shufca shufcadu maxay tahay Soomaali ku soo koob labadii qof ee shayga wada lahaa dhulka wada lahaa ama daarta wada lahaa waa xaq uu yeelanaya ka kale inuu soo ceshado lacagtii hore lagu iibsaday uu ku iibsado kaasa waxa loo yaqaanaa shufca loo yaqaanaa shufcadu maxay gashaa waxay galaysaa oo la isku waafaqsan yahay wixii maguurta ah ee qaybsami kara labada horta saa isu dabadhig labada waa la isku waafaqsan haday isu yimaadaan haddii labada mid la waayo wixii manquulka ahaa ee guurguurayay sida gaadhiga iyo wixii la mida waa la isku hayaa ayib waxaa kaloo la isku hayaa wixii aan qaybsamayn gaadhiga laftiisu ma qaybsamo ya dhulkii iyo daartii aan qaybsamayn aan aqbalayn in la qaybiyo yaraan ay yar tahay awgeed iyadana waa la isku hayaa ayib manquulka maxaa raajixa shufcadu ma gelaysa inaanay gelayn madhab jumhuur ayib ninku jumhuurta hadduu ka boqo xaq buu u leeyahy meel madaahibtu ay wada mareen yaa haba laga xoog bata laga yaabo xagga daliilka shawkaani baa markuu la niqaashaya madaahibta afarta madhaboodba markuu khilaafo ayaa waxa uu yidhaahdaa walaa yahuulannaka haybat ljumhuur yaanay ku baqdin gelin haybadda jumhuurku leeyahy yani waa in loo soo istaagaa haddii la yidhaahdo jumhuurtaa sidaa ku tegay waa culayskeeda ayay leedahay baab lqiraad intaynaa gudagale waxaan tambiihinaynaa sida la ogsoon yahay maanta bishii dilxija ayaa inoo bilaabantay taqwiimaadka iyo kalandarada waxaa ku yaala kolley inay ku dhammaatay jimcihiina ay kow ahayd saasay u badnaayeen laakiin sacuudigu sida bisha ramadaan uu daneeyo ayuu bishana u daneeyaa marka aad bay u eegeen sida wasaa'il iclaamku ay sheegayaan oo de waxa ku xidhan carafo iyo xaj iyo acmaal badan baa ku xidhan marka waxay caddeeyeen soddonkii dilqicda inay soddon ku dhammaatay oo jimcihii noqonayay sabtiduna ay waxa weeye bisha dilxija ay kow noqonayso marka waa awal yowm min ayaami dilxija tobankii maalmood ee fadliga badnaa baa inoo bilaabmay waxaanu isu dardaarmaynaa insha allahu tacaala kolley waa la xasuusan yahay khudabkii jimcahana waa la isku xasuusiyaan filayaa in laga faa'iidaysto insha allahu tacaala oo qofku acmaashii uu qabanaya caadada u lahaa uu wax ku daro si uu jaaniskan uga faa'iidaysto intiisina uu laazimo ayaan insha allahu tacaala ku talinaynaa cilmigan aynu baranaynaa waa wasiilo aynu doonayno in waxa weeye camalfal lala yimaado camalfalkaana lagu gaadho alle subxaanahu watacaala raalli ahaanshihiisa iyo janno lagu gaadho marka jannada laga hadlayo jazaan bima kaanuu yacmaluun ayaa lagu soo gabagabeeya camalkaasa wuxuu u baahan yahay cilmiguu usii baahan yahay marka cilmigan aynu ku dadaalayno in camalkana lagu daro welibana jaanisyada iyo mawaasimta iyo xilliyada faadilka ah laga faa'iideeyo sida saxaabadii iyo salafkiiba ay samaynayeen ka horna nabigu calayhi salaatu wasalaam inugu goobaabiyey camal ahaanna uu sameeyey nabigu calayhi salaatu wasalaam baabu lqiraad wuxuu baab u yahay qiraadka waxaa loo yaqaano qiraad waxaa looga jeedaa min alqardi baa laga keenay asal ahaan oo qardiguna waa alqaطcu walxazu waa shay in la gooyo ayaa la yidhaahdaa kii lacagta bixinayay baa lacagta iska soo goynaya xagga sharciga waxaa loo yaqaanaa waa dafcu maalin liman yatajiru fiihi
بربح معلوم أما والربح بينهما وإن حول الله ذا هيادو ديبتو أما إن حول اللو ديبو عد كشقين إيسا فإذا أي وضيالنا أيان كي لعقت لها يكي كشقيني دفع مال لمن يتجر فيه والربح بينهما سيدا ساعة علماء بدن الشافعية كمديهين أي كن معنيين قراءتك أي كن معنيين علماء قارنا سيدا حنفية وكلا وأي كن معنيين عقد المنفعة المال من جانب والعمل من جانب والربح بينهما وهشيس لو هشين أيوه labadii qof midi lacagta inuu keeno midina shaqada inuu yeesho faa'iidadana ay wada yeeshaan laakiin taariifka mashhuurka ay waxa uu yahay kanaynu tilmaanay dafcu maalin liman yattajiru fiih والربح بينهما qiraad waxa u yaqaana shaafiiciyada iyo maalikiyada oo ahlul xijaaz loo yaqaano ayaa inta badan qiraad isticmaala magaca noocaas xanafiyada iyo xanaabiladuna waxay inta badan isticmaalaan oo ciraaqiyiin waxa weeye inta badan waxay isticmaalaan mudaaraba ayay isticmaalaan waana isla macna weeye mudaaraba waxa laga keenay الضرب في السفر وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله يعني dhulkay ku safrayaan iyagoo fadliga alla iyo nicmadiisa iyo arsaaqdiisa dalbaya marka almudaaraba yani waxa laga keenay الضرب في الأرض للتجارة dhulka in lagu socdo iyadoo waxa weeye la ganacsanayo haddaynu baabkan soo dhaweyno mafhuumkiisu waxa uu yahay qof wuxuu hayaa lacagtii buu hayaa laakiin qaab uu ugu shaqeeyo ama waqti uu ku shaqeeyo ma hayo waa mashquulsan ama qaab uu ugu shaqeeyo ma yaqaan ganacsiga waa lagaga fiican kaash buu laakiin hayaa ama dhaxal ha ku soo gasho ama si kale ha ku soo gasho qofna wuxuu ku fiican yahay ganacsiga iyo sida lacag looga dhaliyo laakiin waxaanu ahayn kaash baanu gacanta ku hayn sharcigu wuxuu baneeyay isagoo danaynaya dadka muslimiinta ay xoolahooda inay kobciyaan kii lacagta hay inuu lacagta u dhiibo mid ku shaqaynaya faa'iidadana ay qaybsanayaan waxay ku heshiiyaan boqolkiiba 10 20 30 50 60 waxa weeye qaabkii iyagu ay ku heshiiyaanna lacagta ay u kala qaadanayaan kan noocaas waxa loo yaqaan mudaaraba loo yaqaan ama qiraad baa loo yaqaan waxayna u qaybsantaa laba qaybood mudaaraba ama qiraad mutlaq wa muqayyad mid mutlaq oo la sii daayay iyo mid la qayday mutlaq waxa looga jeeda intuu lacagta u dhiibo ayuu oranayaa inoogu shaqee wixii faa'iidana waxa weeye konton baan u kala qaadanaynaa boqolkiiba 50 nus iyo nus ama wixii ay cayimaan taasi waa mid mutlaq oo sii daysan waxba lagu ma xidhin qaybta labaad waa mudaaraba muqayyada waa mid la qayday oo dabar ku xidhay bimacnaa shuruud baa lagu xidhay shuruudda noocaasna culimmadu aad bay isugu hayaan guud ahaanna waxaynu u qaybinaynaa shuruuddaasi inay tahay shuruud khilaafsan heshiiska khilaafsan ama sharciga khilaafsan ta noocaasa lama ogola shuruud sharciga khilaafsan ama khilaafsan heshiiskani wuxuu keensanayay shuruudda noocaasa lama ogola ama quyuudda noocaasa lama ogola waana la isku waafaqsan ta labaad waxay tahay shuruud lagu qaydayo heshiiska noocana oo kii xoolaha lahaa uu doonayo xoolihiisa inuu ku ilaaliyo shuruudda noocaasa culimmadu way isku hayaan xanafiyada iyo xanaabiladu way waasiciyaan guud ahaan oo shuruudda noocaasa waa waasiciyaan shaaficiyada iyo maalikiyaduna waa cidhiidhiyaan oo waa diidaan oo waa adkeeyaan waxaa ka mid ah shuruudda ku saabsan
waxa weeye wixii laga shaqeynay yani inuu yiraahdo ka shaqee waxa weeye alaabaha noocaasa ka shaqee alaabaha noocaasana ha ka shaqeyn waxyaabaha noocaasana ka ganacso waxyaabaha noocaana ha ka ganacsan waa wixii laga shaqeynay inuu ku kaantaroolo oo shuruudu u dajiyo xanafiyada iyo xanaabiladu waa banneeyaan shaaficiyada iyo maalikiyaduna waa diidaan walow shaaficiyadu ay ku sii qaydaan shayga uu u cayimay oo ku xidhay haddii uu yahay naadirul wujuud shay aan inta badan la helin ayaa la diidaya laakiin hadduu ku qaydo shay inta badan la helayo oo uu yidhaahdo waxaad ka ganacsataa raashinka ka ganacso waa wax sida badan la helay quutu daruuriga oo keliya ka ganacso hadduu yidhaahdo waa loo ogolyahay laakiin waxyaaba aan inta badan la helay haddii uu ku qaydo uu yidhaahdo kuwaasun ka ganacso waxa weeye way diidayaan waxaa kaloo la isku hayaa cidduu la macaamilayo hadduu yidhaahdo ganacsiga dadka noocaasa ha la macaamilin ama hebel ha la macaamilin ama cidda noocaasa ha la macaamilin iyaduna waa nooc qayda waa la isku hayaa xanafiyada iyo xanaabiladu waa bannaynayaan waxa weeye shaaficiyada iyo maalikiyaduna waa diidayaan khulaasatu lqowl waxaan leenahay asalku waxa uu yahay shuruuddu haddaanay sharciga khilaafsanayn inay bannaan tahay ninkii xoolaha lahaana xaq buu u leeyahay lacagtan uu u dhiibaye loogu shaqaynayo shuruud inuu ku xidho hawsha noocaasa inooga ganacso meesha noocaasana ha ula bixi waxaa ka mida inuu u diido baled cayiman inuu waxa weeye ula safro xoolihii ama inuu ku xidho baled cayiman inuu ka shaqeeyo oo idhaahdo burca gudaheeda unbaa ganacsiga lagu samaynaya magaalo kale la aadi maysa sida raajixa xaq buu u leeyahay shuruudda noocaasa ee isagu isleeyahay xoolahaad ku ilaalinaysaa in loo tixgeliyo waxa weeye xaq buu u leeyahay عن صهيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحو 3 صدح فيهن وحا كقضى السوغان البركة بركة أياك السوغان يعني خير كذا أياب بضان فائدة ذا أياب بضان البيع وإيب إلى أجل مدة انت لغا قاريه وحلا إيبيه أو حلو يقاني البيع المؤجل بيع مؤجل كاها قفكو alaabtii kii iibinayay uu bixinayo lacagtana dib laga bixinayo waxaa kaloo suuragala in lagu macneeyo salamkana lagu macneeyo waayo isaguna xaqiiqadiisu waa bayc muajala laakiin istilaaxa culimada kala soocay oo waxa la dibdhigaya lacagtiibaa la dibdhigaya waxaa la dibdhigayaa lacagtiina waa la qadimaya alaabtana dib baa laga keenaya bayca muajalka cagsigiisa weye labadii shay la isku iibinaya ayaa mid la dambaysiinaya haddii lacagta la dambaysiiyo alaabtana lasoo hormariyo waa bayc la dibdhigay cagsigeeda haddii la sameeyo oo alaabtu ay dambayso lacagtana lasoo qadimayo waxay noqonaysaa salam bay noqonaysa marka nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka wuxuu tilmaamayaa albaycu ilaa ajal bayc mudaysan oo labadii shay mid la dibdhigayo muddo cayiman loo dibdhigayo waxa ku sugan baraka ayaa ku sugan waayo mar walba labada qof ee wax kala iibsanayaan ma helayaan labadii shay ee la isdhaafsanaya inay wada hayaan waa waasicinta sharcigu uu waasiciyey wanaag badan baa ku sugan walmuqaarada qiraad in la sameeyo oo cid lacagtii loo dhiibo ku shaqaysa iyadana khayr baa ku sugan wa khaldu lburi qamadidii in lagu khaldo oo la dhexgeliya bishaciiri haadi lilbeyti aqalka la isugu daro isticmaalka lagu isticmaalayo laa lilbayci iib aan la isugu khaldin rawaahu ibnu maaja biisnaadin daciif xadiidka waxaa soo warinaya suhayb arrumi waxaa ka warinaya inankiisa loo yaqaano saalix ibni suhayb صالح بن صهيبna waxaa ka sii warinaya cabdالرaحmaan بن daawuud isagana waxaa ka qaatay nasr بن الqasim waa nasr بن الqasim
can cabdiraxmaan bni daawuud can saalix bni suhayb can abiih suhayb arumi oo saxaabigii jaliilka ah. cilada lagu cileeyey ee xaafidkuna uu tilmaamay sanadka in loo daciifinayo waa saddexdaa nin ee la tilmaamay waa nasr bnu lqasim can cabdiraxmaan bni daawuud can saalix bni suhayb. saddexduba waa majhuul wey, waa majaahiil. marka sanadku intaa laynoo sheegay waa musalsal bilmajaahiil, dad aan la aqoon xaalkooda oo xadiidkoodana aan la aqbalay ayaa xadiidka kala qaatay. sida awgeed xadiidka dacfigiisu waa shadiid. dahabi waxa uu ku tilmaamay isnaadkiisu inuu mudlim yahay, mugdi inuu isnaadkiisu yahay, matniguna inuu baail yahay. ibn ljawsina xadiidka wuxuu ku soo saaray kitaabkiisa mawduucaadka ah, axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu been abuuranayo, walow qaacidadu ay tahay ibn ljawsi raxmat ullaahi calayh inuu ku tashadudo oo axaadiid xataa nabiga ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam bal ku sugan saxiixu muslimka inuu mawduuc gaadhsiiyo ama been uu gaadhsiiyo oo kitaabkiisa mawduucaadka uu ku soo saaro. wa fii kitaabi waladi ljawsiyi ma laysa min almawduuci xata wuhima min alصaxiixi wاlضaciifi wاlxasan damantuhu kitaabiya alqowl اlxasan wmin hariibi ma taraahu faclami fiihi xadiiu min صaxiixi muslimiin. yani waxyaabaha culimmadu ay kula yaabeen waxaa ka mida axaadiis ku sugan saxiixu muslimka inuu ku tilmaamay mawduuc inay tahay oo kitaabkiisa mawduuca uu waxaweeye kusoo saaray. khulaasat lqowl xadiidkan dacfigiisu waa shadiid oo waxaweeye waa daray. laakiin masalada qiraadka looma hayo xadiid nabiga ka sugnaada calayhi salaatu wasalaam oo si gaara u tilmaamaya looma hayo. laakiin waxaa loo daliishanayaa cumuumaadka adilada tilmaamaya risqiga alle in la dalbo, in la ganacsado, xoolaha in la kobciyo, adilada caamka waa loo daliishanaya. waxaa kaloo loo daliishanayaa asalku inuu yahay wixii iib ku saabsanay inuu bannaan yahay, wixii mucaamalada ku saabsanaya ganacsigu inuu bannaan yahay ayaa asalka iyo qaacidadu ay tahay. taana waa la daliishanaya. waxaa lagu sii xoojinayaa culimmadu inay ku ijmaaceen oo ay isku waafaqeen inay bannaan tahay qofku lacagtiisa iyo hantidiisa inuu cid u dhiibo, ciddaasina ay ku ganacsato, faa'iidada ka soo baxdana ay qaybsanayaan. culimmadu waa isku waafaqeen. adiladaasoo dhan baa loo daliishanaya. xagga nebiga calayhi salaatu wasalaam marka laga eego waxaa kutubu siyar ay tilmaamaysaa nabigu calayhi salaatu wasalaam intii aan loo waxyoon markii khadiija radia allahu tacaala canha uu xoolaheeda wuxuu ugu shaqaynayay inay ahayd mudaaraba inay ahayd. kutubu siyar baa tilmaamaysa, culimmada qaarna waa saxiixiyeen inay waxaweeye siiradaas ama qisadaasi inay sugan tahay. laakiin waa intaan nabiga loo waxyoon calayhi salaatu wasalaam, waa qabla albictha, waa inta aan la soo saarin. xilligii dambe ee nabiga la soo saaray calayhi salaatu wasalaam waxaa ku macaamilayay saxaabada ku macaamilayay. yani nabiga si cad loogama hayo caqdiga ama heshiiska noocana inuu galay kama sugnaa, hadal ahaanna ugama sugnaa, ficil ahaanna ugama sugnaa. laakiin sida bacdu ahlicilmi ay tilmaamayaan saxaabadiibaa ku tacaamulayay, waayo ganacsigii xilligaa socday waa ballaadha. waxyaabahay ku macaamilayeen bay ka mid ahayd nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa ogaanaya. marka waxaa ku sugan iqraar baa ku sugan. haddii taab la bushiyana mar walba waxayn leenahay asalku waa inuu bannaan yahay, wax diidayana lama hayo. culimmaduna waa ku ijmaaceen oo waa isku waafaqeen. وعن xakiim bni xizaan radia allahu tacaala canhu saddex masala lagu tilmaamay xadiidkaas ahayd albaycu ila ajal, almuqaarada oo baabkan loo keenay, khaldu lburi bاshaciiri lilbeyti la lilbayc. yacni heedii iyo qamadidii in la isku barxo haddii guriga lagu isticmaalayo lagu cunayo barakaa ku sugan. waayo xilligoodii waxa weeye waxa qaalisanaa qamadida ayaa qaalisanayd oo heedda aad uga qaalisanayd. marka labadaba haddii la isku barxo waxa weeye kharashka qoyska ku baxaya ayaa waxa weeye hadday qamadi sooca ay cunaan waxa weeye kharashka
ayaa badanaya. marka haddii ka jaban iyo ka qaaliga la isku barxo oo aqalka lagu cunayo daqiiqna laga samaysanayo waxa weeye biilkii qoyska ku baxayay baa baraka galaysa oo wax badan baa ku filaanaya. ama xagga bayca lama ogolo, waxaan loo ogolay labadaba waxa galaya riba ayaa galaysa. marka ishkaalaad badan baa ka soo baxaya. labada mid ka mid ah haddii lagu iibinayo waxaa galaysa riba alfadli baa galaysa, waayo maadaama la isku khalday oo aanay kala soocnayn kaa kale lagu iibinayo musaabanadii bay gudagalaysaa inuu ka soo hadalay, oo mid la yaqaano miisaankiis in lagu iibiyo midaan la ogeyn. qamadi ayaa lagu iibinaya heed iyo qamadi la isku barxay. ishkaalkaasi waa ku sugan yahay. ishkaalka labaad waxa suuragala kaa isku barxay inuu dadka uga iibinayo inay qamadi tahay ama inay heed tahay. xaqiiqaduna ay tahay inay waxa weeye tahay mid la isku barxay oo la isku khalday. taana waxa laga yaabaa qish inuu soo guda karo. marka saasaa loo diidayaa oo loo mamnuucayaa. laakiin haddii ay tahay isticmaal la isticmaalayo qofku naftiisa uu isticmaalayo waa mid waxa weeye loo ogolyaho bannaan weeye. وعن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أنه كان وآها صحابيس يشترط مدك شرطية على الرجل ننكي إن أعطاه هدي أسي مالا حوله مقارضة أسيه أما مضاربة أسيه وحكو حرية ألا تجعل مالي حولها إن آذن قلن وآذن يلن في كبد رطبة بيرقيا يعني وحنو بيرقيا أحاديث له استعمالا وفي كل ذات كبد رطبة أجر وتنبي لها عليه الصلاة والسلام. يعني وحي حول النولة وحي النولة وحي لقليو إلا السيانة صدقة كسوغا. مركا شرطي وحاوية حكا قنعسان وحنول ويا وحنول هوشي سايا بضان إنه بقت دينتال غيابا وحو باهي هاي خرش بدن بو باهي ووحنول بيو باهي عوص بو باهي وحيابا بدن بو باهي. ألا تجعل مالي حكيم وحو كحري حولها إن هذا قلين في كبد رطبة وحوية وحنول ولا تحمله أكو قاضي في بحر بط أو بطنها اللفور حولها دوني مركب يوحي الله مدى كل سفري. ولا تنزل به إن هذا كل دقين في بطن مسيل تقص عليه يعني مال وحوي توقنا حولها هؤلاء دادعين وبعضين لقبقيو إن وحوي ضادك وقاطه إنه قاطه. فإن فعلتها ضاد سميسو شيء ومن ذلك كاكمدا فقد ضمنت مالي حولها أي ضمانة قاضيس. رواه الدارقطني ورجاله ثقات. سند كيسو وسند حق بضان وحيلو سورين يا أبي الأسود من كان لو يقانو عن عروة وغيره عن حكيم. عروة بن الزبير يرك لما ولا ورين يا عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنهم. سند كيسونا وسند وحوية قوية سيد حافظ ابن حجر وحوية كتل مامو وحوية كتبتي سقار وكتل مامو أو يريد تلخيص كوكالة إسناده قوي إسناد كيسوا قوي أو حب بدين. مركا خلاصة القول سند كيسوا صحيح وحنا ينوت المامي حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه ما القبل ندي صحابة يكمدها hadduu qof la galo heshiiskan uu la galo shuruud inuu ku xidheeyay. taana waxaynu u daliishanaynaa mudaarabada muqayadka ah ee shuruudda leh inay bannaan tahay ayaa waxa weeye laga faa'iidaysanayaa. atharkuna waa mawquuf oo ma aha xadiid nabiga calayhi salaatu wasalaam laga sheegaya ma aha. waa ficil uu samaynaya xakiim ibnu xizaam radia allahu tacaala canhu uu samaynayay. waa mawquuf wey. وقال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل يعقوب وحو كشقيي في مال حوله لعثمان الصبناضي على أن الربح بينهما وحونا كشقيي فائدته
labadooda inay u dhaxayso wahuwa isaguna mawquufun waa mawquuf saxiixun saxiixa waayo sanadkiisu waa sanad macruufa imaamu muslimna saxiixiisa uu ku ictimaado waa alcalaa ibni cabdiraxmaan alxuraqi can abiihi can jaddih waa silsilada noocaasoo macruufa alcalaa waa saduuq weeye haddana waxaa laga hadlayaa yacquub alxuraqi ninka loo yaqaano ayaa laga hadlaya yacquub oo ka mida taabiciintii waaweynaa ka mida ayaa cumaan ibnu cafaan wuxuu heshiis kula galay xoolo cumaan leeyahay cumaanna maalqabeennada saxaabada ayuu ka mida sida la yaqaano xoolo cumaan leeyahay inuu ku shaqeeyo faa'iidadana ay kala qaybsadaan marka labadan mawquufba waxay inoo tilmaamayaan xakiim ibnu xisaam saxaabiga loo yaqaano iyo cumaan ibnu cafaan saxaabigii jaliilka ahaa khaliifkii saddexaad labaduba inay ku dhaqangeliyeen oo ay sameeyeen waxa loo yaqaano mudaarabada waxa loo yaqaano saxaabo badan oo kalena waa laga haya abi bakar iyo cali ibnu abi aalib iyo saxaabo badan oo kalena waa ka sugnaatay mucaamalada noocana inay ku mucaamileen way ka ansaxday qiraadku saynu tilmaannay waa la ysku waafaqsan yihi laakiin wuxuu shabaha laba baab ayuu waxa weeye labadaba shabah la leeyahay wuxuu shabaha markaynu dhinac ka eegno dayntii buu shabaha dhinac kale markaynu ka eegnana wuxuu shabahaa kiradii ayuu shabaha laakiin labadaba waa ka duwan yihi wuxuu daynta kaga duwan yihi wuxuu daynta ka shabahaya qof baa lacagtiisii qof kale u dhiibaya qofkaa kalena lacagtii waa isticmaalaya waanuu ku shaqaynaya si ay faa'iida uga soo baxdo marka midina lacagtii buu leeyahy midina xoolihii buu qaadanaya waa ku shaqaynaya dhinacaa wuxuu ka shabahaa dayntii buu ka shabaha laakiin waxay ku kala duwan yihiin waxa weeye waxa daynta loo yaqaano lacagteeda waa la magdhabaya xaal kastaba haddaad qof u tagto oo aad tiraahdo waxaan doonayaa $1 inaad i daymiso 6 bilood ka bacdina waa kuu keenaya ku talagalkaaguna uu yahay kunkaa inaad ku shaqaysato lacagta markaad sidaa uga qaado maadaama dayn aad uga qaaday haddii lacagtii lagaa xado ama ay baaba'do lacagtii waa lagugu leeyahy waa daynta lacagta waa lagugu leeyahy markaad saa uga baxdo haddii lagaa xado waxa weeye lacagtii qofkaasi waa kugu leeyahy waa la damaanad qaadaya xaal kastaba hadday dayn tahay mudaarabadu iyadu waa ka duwantahay haddaad qofkii u timaado oo aad ku tiraahdo aad ku heshiisaan lacag inuu kuu dhiibo ama adiguba ka codso oo ku idhaahdo $1 baan kuu dhiibaya inooguna shaqee wixii ka soo baxana waynu wada leena lacagtaasi waa lacag ammaana ah hadday lacagtaasi baaba'do waxa weeye lagugu yeelan maayo adoo aan ka shaqayn lacagtu haddii ay baaba'do talafku ku yimaado mudaarabadii baa meesha ka baxaysa waxa weeye lacagtiina waxba lagaaga yeelan maayo khasaaruhuna wuxuu ku dhacaya kii xoolaha lahaa qacantaaduna waa qacan waxa weeye aamina oo la aaminay taa waa ku kala duwan oo waxay leenahay lacagtii la daynsaday waa la magdhabaya xaal kastaba lacagtii mudaaraba loo qaatayna lama magdhabayo ilaa in xadgudub la sameeyo ama gaabis in la sameeyo mooyaane taa waa ku kala duwan yihiin ta labaad waxay ku kala duwan yihiin lacagtii daynta lagaaga qaatay inaad faa'iido ka hesho lama ogola bataatan kullu qardin jara manfacatan fahuwa riba wataynu ka soo hadalnay waa wixii aad dayn u bixisay laakiin wixii aad mudaaraba u bixisay iyada waxa lagu ogolyahay inaad shartisato inaad faa'iido ka hesho lacagtanaan kuu dhiibaya inoogu shaqee 50%na wixii laga faa'iida ii soo celi marka lacagtaadina waa lagu soo celinaya 50% faa'iidadana waa lagu soo celinaya haddaanu khasaara iman
qardiga iyo mudaarabadu labadaas ayay ku kala duwan yihiin. xagga ijaarada, mudaarabadu waxay ka shabahaysaa qofku waxa weeye qof buu kiraysanaya oo bimacnaa xoolihiisa ayuu u dhiibaya, gaadhigiisuu u dhiibaya, maalan dukaankiisuu u dhiibaya, wuxuu odhanayaa inooga shaqee, mushahar cayimanna waa siinaya, muddo cayimanna waa kula heshiinaya, dukaankaa bil iiga shaqee, sanad iiga shaqee, bil walba inta noocaasaan ku siinaya. marka waxay iska shabahayaan qofku lacag uu leeyahay buu cid kale u dhiibaya, kii kalena waa ku shaqaynaya, kii wax kiraysanaya lacagtii buu bixinaya ama xoolihii, ka kalena wuxuu bixinaya shaqadii buu bixinaya. dhinacana way iska shabahaya, laakiin waxay ku kala duwan yihiin. farqiga u dhaxeeya waxa uu yahay ijaarada waxa weeye qofku wuxuu odhanaya, qofkii buu kiraysanayaa xilli cayiman, lacag cayimanna waa ku kiraysanaya, caqdigeeduna waa laazim oo waxay la mid tahay iibabkiibay la mid tahay. marka iyada waxa waajiba in la cayimo muddada la shaqaynayo iyo waxa lagu shaqaynaya in la cayimo. kaa shaqaynaya waxa uu leeyahay waa wax loo damaanad qaadayo. markuu dukaanka u dhiibo ama uu muddo kiraysto xoolo si uu uga shaqeeyo, kii la kiraystay ee ka shaqaynayay wixii la siinaya waa cayiman tahay. $1,000, $500, $100, $200 lacag cayiman ayaa qofka noocaasa lagu shaqogeliyey. meeshii haddaanay waxbaba ka soo bixin isagu lacagtiisa mar walba waa leeyihi, lacagtiisu waa madmuun oo ijaarada lacagteedii waa la siinaya xaalnaba, lala sugi maayo faa'iido. laakiin mudaarabada waxa weeye faa'iidadiisu iyo mushqaayadiisu waxay ku xidhan tahay haddii ay faa'iida soo baxdo, waana miday ku heshiiyeen. mudduu ka shaqaynaya, muddadaa hadday faa'iida ka soo baxdana waxbuu ku yeelanaya, faa'iidada 50% ama waxay ku heshiiyeen. haddaanay waxbaba soo bixin, wax faa'iida aanay soo bixin, waxa weeye kii lacagta lahaana wuxuu khasaarayaa xoolihiisa faa'iidada ka soo bixi lahayd ayuu waayaya, xoolihii ka maqnaa faa'iidadii uu ka sugayay buu waayaya, ama raasumaalkiibaabuu waayaya. kan kalena wuxuu waayayaa shaqadii iyo tacabkii iyo wakhtigii uu geliyey buu waayaya. caqdiganina waa caqdi loo yaqaana caqdulmushaaraka, saynu soo tilmaannay cuquudda heshiisyada ayuu ka mid yahay, waxaanay ku dhisan tahay cadaalad bay ku dhisan tahay, siday waxa weeye culimmadu tilmaameen. faa'iidada markaynu ka hadlayno, faa'iidadu waa wixii ay ku heshiiyaan, wuxuu doona ha noqdo, wixii ay ku heshiiyaan ayay waxa weeye faa'iidadu ay ku dhisan tahay. nisbadu noocay doonta ha noqoto, laakiin waxa shardiya in nisbadeeda in la yaqaano. culimmadu waxay tilmaameen hadduu xoolihiisa u dhiibo oo uu idhaahdo inoogu shaqee, faa'iidadana waynu wada leena, nisbana aan la sheegin, haddii sidaa loo itlaaqo waxaa lagu qaadaya 50-50 baa lagu qaadaya. 50% kii xoolaha lahaa inuu yeelanayo, 50%na kii shaqaynaya inuu yeelanayo. waa hadday itlaaqaan alribxu baynana, faa'iidaduna waa inoo dhaxaysaa. waxaa lagu qaadayaa dhexdhexaad baa lagu qaadayaa, nus iyo nus inay kala yeelanayaan. hadday doonayaan inay kala badsadaan waa in la caddeeyo wey. caddaynteeduna waa inay tahay nisbo, waa inay tahay 10%, 20% iyo wixii la mida waa inay tahay, ee aanay noqon lacag cayiman, waa inayna noqon. nisba haddii la sheego oo labada mid loogu daro lacag cayiman, waxa weeye culimmadu waa diideen. yacni in la yidhaahdo $1,000 qaad oo inoogu shaqee, faa'iidadana waynu kala qaybsanayna, waxaana kuu sii dheer adiga $200 oo faa'iidada gaarka ana waad leedahay. tan noocaasa culimmadu waxay isku waafaqeen inaanay bannaanayn, waa muxaram weeye, ijmaac baa lagu soo naqliyey. waayo waxaa suuragala ninkii shaqaynayay
markuu xoolaha ka shaqeeyo waxa ka soo baxay oo kaliya waxa laga yaabaa inay noqoto intii la magacaabay. faa'iidadu intii la magacaabay haddii ay noqoto mid kaliya yeelanay, marka meesha waxa ka soo baxaysa labadii shuraka ah mid faa'iido go'an in la siinayo ka kalena u baqtiyana si wixiisu ay yihiin. tan noocaasna dulmi ba ku sugan, cadaalad ma aha. cadaaladu waxay tahay labaduba inay biimo isla galaan oo ay sugaan wixii soo baxa inay sugaan. tan noocaas waa la isku waafaqsan, laakiin culimadu waxay isweydiiyaan haddii labada mid kii ka shaqaynayay ma la siinayaa biilkiisa ma la siinaya, lacag cayiman in la siinayo waa la diiday, waa la isku waafaqsan, laakiin nafaqadiisa ma la siinaya, wuxuu cuno iyo wuxuu cabo waxa weeye ma la siinaya. waxa weeye jumhuuru ahli ilcilmi waxay yidhaahdeen waxa weeye la siin maayo, la siin maayo. ka shaqaynaya wuxuu cunayo iyo wuxuu cabayo waa inuu jeebkiisa ka bixiyaa. ninkana wuxuu heshiis kula galay lacagta wixii ka soo bixi doona faa'iidadeeda boqolkiiba intaa inuu leeyahay. marka hadduu biil ka qaato waxaa laga yaabaa wixii ka soo baxayaba inay noqoto wixii uu cunayay ee waxa weeye uu biishanayay. laakiin wuxuu khilaafku xoog badanaya markuu safar la galayo xoolihii ayna isku ogiyeen xoolihii in lala safro oo magaaladii ninkaasi uu deganaa uu kala baxo magaalooyin kalena uu aado. qofka waxa ku baxaya kharash ka badan kharashkii kaga baxayay magaaladiisa iyo meeshii uu deganaa. kharashka noocaas ma la bixinayo? in badan oo culimada kamid waxay yiraahdeen ha waa la bixinaya. shaafiiciyaduna waxa weeye waa diideen oo waxay yiraahdeen la bixin maayo xataa xaaladda safarka isaga ayaa isu qaba. markaynu masalada ka hadlaynaa ogaada waa kharashkii ku baxayay qofkii ka ganacsanayay xoolaha, kharashkii ku baxayay cuntadiis iyo cabitaankiis iyo hoygiis iyo maryihiis iyo danaha uu u baahan yahay waa wixii isaga ku baxayay. laakiin hawsha waxa laga ganacsanaya kharashka galaya waa la isku waafaqsan yahay. alaabtii haddii ay xoola noqoto xoolaha biilkooda iyo kharashkooda iyo wixii lagu qaadayay iyo noolkooda iyo meeshii lagu kaydin lahaa iyo xamaalkii xamaalayay waxyaabahaasoo dhan waxa laga bixinaya xoolihii lagu ganacsanayay baa laga bixinaya. kan ku shaqaynayaana jeebkiisa waxba ka bixin maayo. hadduu wax ka bixiyana waxay noqonaysaa tabaruc bay noqonaysaa bay culimadu tilmaameen. marka sidaa loo kala fahmo hadal kama taagna wixii shaqadu ay u baahnayd ee ganacsigu u baahnaa ee xoolaha la gelinayay xoolaha ayaa waxa weeye laga bixinaya. hadal la kama taagna, laakiin waxa la isku hayaa kharashkii ku baxayay ayaa la isku hayaa. waxa loo badan yahay haddii safar lala galo in waxa weeye kharashka noocaasa oo walibana lagu xadaynayo wixii curfigu u yahay waxa la bixinaya ma aha mushahaar ma aha lacag cayiman ma aha ee waa takaaliifta iyo kharashka safarku uu leeyahay ayaa waxa weeye la bixinaya. tan noocaasi waa bannaan tahay. xataa bacdu ahli ilcilmi waxay gaadhsiiyeen oo madaahibta ka mid ninku meeshan haddii uu degan yahay burca uu degan yahay xoolihiina uu ku ganacsanayo oo uu waxa weeye hargeysa uu la aado xoolihii hargeysana ay u joogto xaas u mehersan oo aanu la aqalgelin in kharashkiisa laga bixinayo. haddii uu la aqalgalana inuu noqonayo qof dagaana oo waxa weeye wax kharasha aan yeelanayno muqiim uu noqonayo. tafaasiil bay leeyihiin, laakiin masaladaas waa masaladan hadda aadka la isu weydiiyo in waxa weeye labadii qof ee mudaarabada ku shaqaysanaya kii meesha hayay ee meesha ka shaqaynaya inuu mushahaarna qaato faa'iidadana wax ku yeesho. marka tan noocaasa waxa weeye mid saxa ma aha, waayo faa'iidadan la siinayo lafteedu inagu mushahaar baynu isu qornaa. mushahaarka noocaasa waxa laga yaabaa inay la socoto wax ziyaadaahi ay la socoto, waayo inta badan waxa weeye qofka waa loo waasiciyaa oo waxa weeye mushahaar cayiman $200, $300, $500 baa la siinaya oo mushahaar ahaan loogu magacaabaya. waxaana laga yaabaa
xoolahaasi inay nafaqadii ay ka badato ay wax uga soo hadhaan. marka mushaharku waa xaalad aad moodo inaanay faa'iido toosana aan lagu magacaabayn, nafaqadiina waxa weeye ka yara badan sida hadda dadku ay isticmaalaan. marka waxa iska fiican in waxa weeye faa'iidada noocaasa ama lacagta noocaasa qofku uu u baahan yahay inuu waxa weeye sii qaato faa'iidadiina laga gooyo, faa'iidadana waxa weeye laga gooyo. bacdu ahli ilcilmina waxay yidhaahdeen, waana qowl laga soo naqliyay imaamu axmed, bacdu lmuxaqiqiinna ay xoojiyeen, curfigu haddii uu curfigu keensanayo qofkii kharashaadkiisa in la daboolo inta la qiyaaso wixii ku baxayay, wuxuu cunaya ama cabbayay inta loo qiyaaso in la siiyo bilbil loo siiyo, xaaladda noocaasa haddii ay ku heshiiyaan, curfiga iyo dhaqankuna uu sidaa yahay oo ganacsatada beledkaa jooga ay sidaa isla caadaystaan, in waxa weeye ay bannaan tahay. laakiin axwadka iyo xalaal miradku waxa uu yahay sida kale aynu tilmaannay ayuu yahay. baabu lmusaaqaati walijaara, wuxuu baabu yahay musaaqaadka waxa loo yaqaano dhirtii in la waraabiyo iyo ijaarada kirada waxa loo yaqaano. almusaaqa waxaa laga keenay saaqa fulaanun fulaanan, hebel ayuu kula heshiiyey waxa weeye waraabin geedihiisa la waraabinayo. musaaqah waa mufaacala, lifaacala alficaalu walmufaacala wagayru maa mara asamaacu caadala. waa heshiis laba qof ka dhaxeeya, midbaa geeda uu leeyahay buu ka kale wuxuu kula heshiinaya geedaha inuu u waraabiyo oo uu ka shaqeeyo, wixii cille ku imanaysana uu ka ilaaliyo ayuu kula heshiinaya. marka almusaaqa waxaa lagu macnaynayaa waa dafcu shajarin liman yasqiihi wayacmalu fiihi bijuzin macluumin min athamara. waa dafcu shajar, geed aad leedahay inaad u dhiibto, liman yasqiih cid geedkaa waraabinaysa, wayacmalu fiih ka shaqaynaya wixii kale shaqee uu baahan yahay, ee lagu ilaalinaya midhaha, laguna wanaajinayo midhaha, lagu wanaajinayo inay hagaagaan oo ay soo baxaan. wayacmalu fiih mushqaayadiisuna ay tahay bijuzin macluumin min athamara, qayb cayiman oo midhaha ka mida, qayb cayiman oo bimacnaa loo og yahay oo midhaha ka mida. cayiman ama la garanayo waxaynu uga jeednaa xagga nisbada ayaa looga jeedaa. yacni midhaha soo baxa boqolkiiba 10 baad leedahay ee ka shaqee, boqolkiiba 50 baad leedahay ee ka shaqee. ta noocaasa musaaqaat baa loo yaqaanaa. idan musaaqaat wuxuu ku saabsan yahay geedo beeran oo midho laga filayo in laga shaqeeya waa musaaqaat weeye. geedaha waraabkooda iyo hagaajintooda waa musaaqaat. waxaa kaloo la mida almusaaraca oo iyaduna noqonaysa dafcu ardin liman yazracuha bijuzin macluumin mima yakhruju minha. waa dafcu ardin, dhul bannaan in loo dhiibo, liman yazracuha cid beeranaysa oo falaysa, bijuzin macluum mushqaayadiisuna ay tahay qayb cayiman oo ah wixii ka soo baxayay, bijuzin macluumin mima yakhruju minha, oo ah wixii ka soo baxaya wuxuu doonaha noqdo. ka noocaasana musaaraca ayaa loo yaqaana. alijaara oo iyadana meesha laynoogu sheegay oo shabbahaysa, iyaduna waxay tahay caqdun calaa manfacati caynin aw camal, caqdun calaa manfacati caynin aw camal, yacni in lagu heshiiyo oo heshiis lagu galo cayn manfacadeed ama camal manfacadiis in waxa weeye lagu heshiiyo, cayn iyo camal. yacni aqal baad leedahay, waa cayn wey, ijaarat lacyaan. marka aqalkii wixii ka soo baxayay ayaad qaadanaysaa
qofka kalena manfaacadii ka soo baxaysay ayuu manaafacaadsanay. caqdun cala manfacati cayn aw camalna waa qof bini aadana ayaad leedahay shaqada ii qabo, marka waxa weeye waa ijaaratu camal. qofka bini aadamka laftiisa maad kiraysan ee waxaad kiraysatay waa shaqadiis, wuxuu kuu qabanayo. labaduba ijaaratu lacyaan iyo waxa weeye ijaaratu lcamal, labaduba waa labo waxa weeye bannaan oo culimmadu ay isku waafaqsan yihiin. marka shiikhu labada baabba axaadiistooda ayuu meesha kaga hadlayaa, almusaaqa walmusaaraca iyo alijaara oo iyaduna baab madax bannaan ah. waxaana fiicnaan lahayd inuu xaafid ibnu xajar ijaarada baab waxa weeye mustaqila uu ka dhigo, sida culimmada fiqiguba mid walba ay kitaab madaahibtoo dhan ay uga dhigaan, ijaaradana kitaab ama baab bayca ka mida laga dhigo, musaaqaadka iyo musaaracadana laga dhigo baab mustaqila looga dhigo. laakiin shabah badan baa ka dhaxeeya. shabahaasina waa kaynu mudaarabada kusoo tilmaannay, yacni geedihii aad lahayd inaad cid ka kirayso, mushqaayad cayimanna aad ka qaadato, ijaara wey. cagsigeeduna oo noqonaysa mudaarabo noqonaysaana waa in waxa weeye geedihii aad u dhiibto, midhihii wax ka soo baxayayna iyadoo nisbe la eegayana uu wax ku yeesho, oo adiguna aad sugto faa'iidada soo baxaysa si aad qayb uga qaadato, geedahaaga aad uga sugto, isaguna shaqadiisa uu ku yeesho faa'iidada qayb la cayimay oo waxa weeye la og yahay nisbadeeda uu wax ku yeelanayo. axaadiisteeda ayaa meesha lagu tilmaamayaa insha allahu tacala, markaasaynu sii faahfaahin doonaa. can ibni cumar radi allahu tacala canhuma ana rasuula allahi sal allahu alayhi wasalam caamala waa kula macaamilay ahla khaybar. ahlu khaybar wuxuu kula shaqeeyey oo kula heshiiyey bishatri maa yakhruju minha, wixii ka soo baxayay nuskeed oo min amarin midho ahaaday aw zarcin ama zarac ahaaday. midho waxaa loo isticmaalaa fawaakihda ayaa loo isticmaalaa, zaracuna oo waxyaabihii kale dalagii sida qamadida iyo heedda iyo wixii la mida ayaa zarc loo isticmaalaa. muttafaqun calayh, xadiidka bukhaari iyo muslim baa isku waafaqaya. wa fii riwaayatin lahuma, riwaayo labadoodu ay leeyihiin waxaa ku yimi fasa'aluu waa weydiiyeen an yuqirahum biha, nebigu inuu u sugo oo uu u daayo calaa an yakfuu inay ka kaafiyaan oo ay kaga filnaadaan camalaha shaqadeeda. walahum iyagana u sugnaatay nisfu thamar, midhaha barhkii iyagana ay u sugnaatay. faqaala lahum rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam, rasuulkii alle waxa uu ku yidhi nuqirukum biha, waanu idiin daynaynaa calaa dalika arrinkaas maa shi'naa inta aanu doonno. faqaruu biha waa ku sugnaadeen oo bimacnaa waa loo daayey, xataa ajlaahu ilaa uu ka raray cumar bnu lkhaaab radia allahu tacala canh. walimuslim, muslim waxaa ku yimi oo u sugnaaday ana rasuula allahi sal allahu alayh wasalam dafaca waa u dhiibay ilaa yahuudi khaybar yahuuddiisa, nakhla khaybar geedaheeda timireed ayuu u dhiibay, iyo wa ardaha dhulkeeda bannaan ayuu u dhiibay, cala an yactamiluuha inay kaga shaqeeyaan min amwaalihim xoolahooda inay kaga shaqeeyaan. walahum ay u sugnaatay shatru amariha, midhaha ka soo baxaya qaybteedna ay waxa weeye u sugnaatay. xadiidkani wuxuu inoo tilmaamayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam meesha khaybar la yidhaahdo markii uu furtay, waxaana lagu furtay canwa, xoog baa lagu qabsaday sida loo ogsoon yahay, waxaana la furtay sanadkii 7aad. khaybarna waxay meel caan ku ah waxa weeye beerashada caan ku ah, waa dhul beereed wey, waana meelaha ugu badan ee hadda sacuudiga timirtu ay ka soo go'do. waxayna ka mid tahay gobolka madiina, almadiina almunawara, degmooyinka hoostaga mid ka mida weeye, kamana foga madiina, xagga waqooyiga ayay ka xigtaa. markii nabigu yahuudda uu ka qabsaday iyagoo beero badan ku haysta, ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu doonay inuu ka qaado. dabeedna waxay ka codsadeen
maadaama dhulkii ay yaqaanaan khibrana ay shaqadii u leeyihiin oo iyagu ay ka yaqaanaan saxaabadii madiina ka timi ahlulmadiinana ay ku adag tahay inay ku nagaadaan culayskuna uu badnaa oo aan laga maarmayn xitaa saxaabadii aan laga maarmayn waayo waa sanadkii 7aad jihaadkii baa socday dagaaladii baa socday saxaabadu nabiga ayay ku mashquulsanaayeen madiinana dana badan baa kaga xidhnaa culays bay ku ahaan lahayd magaaladoo dhan inay wada hawlgeliyaan oo dakhligii ka soo baxaya ay ka soo saaraan waa ku cuslay xog badan iyo khibrad badanna may lahayn dabeedna waxay ka codsadeen inay iyagu ka shaqeeyaan wixii ka soo baxayana iyaga iyo muslimiintu ay qaybsadaan nabigu calayhi salaatu wasalaam waa u sugay nuqirukum calaa dalika maashiina heshiiska noocaasa intaanu doonaanu idinla gelayna yani xaq baanu u leenahay markaanu doonno inaanu ka baxno waxa lagula heshiiyey waa musaaqaat iyo musaaraca labadaba sida axaadiistu ay inoo tilmaamayso yani geedihii taagnaana musaaqaat baa lagu samaynaya waayo musaaqaatku waa calaa mawjuud wey musaaracaduna waa calaa macduum musaaqaatku waa cala almawjuud geetimireedkii taagnaa ee midhuhu ay ka soo go'ayeen shaqada laga shaqaynaya waa in la waraabiyo oo la hagaajiyo si midho ay uga soo baxaan ka noocaasa musaaqaat baa la yidhaahda lafdigana waxaa inoogu yimi nakhla khaybar wa ardaha khaybar geetimireedkeeda in laga shaqeeyo iyo dhulkeeda marka geetimireedka taaganay jira in laga shaqeeyo waa musaaqaat wey shaqadiisuna waa in la waraabiyo musaaqaadkii waa ku suganya wa ardahana waa dhulkii bannaanaa in wax laga beero si ay wax uga soo go'aan xadiidka labadaba waa lagu tilmaamay laakiin culimmadu aad bay isugu khilaafeen musaaqaadka jumhuuru ahli lcilmi waa banneeyeen musaaqaadka jumhuuru ahli lcilmi waa banneeyeen oo ah geedihii inaad qofka kula heshiisay inuu kaaga shaqeeyo faa'iidada ka soo baxaysana aad kala qaybsataan faa'iidadaasina waa midhaha ka soo baxaya laakiin musaaqaadkaasi muxuu galaya khilaaf baa culimmada dhexdooda u dhaxeeya jumhuurtii banneeyey badankoodu waxay yidhaahdeen midhoo dhan bay ku bannaan tahay geetimireedkiibay ku bannaan tahay cinabkiibay ku bannaan tahay tiinkiibay ku bannaan tahay fawaakihda kale la midkaabay ku bannaan tahay midhoo dhan bay ku bannaan tahay waana sida xadiidka laga fahmayo bishadri maa yakhruju minha min amarin amarna waa midhoo dhan cumuumkaasay daliishanayeen waa imaamu shaafici qowlkiisa qadiimka ah iyo imaamu maalik iyo imaamu axmed ayaa ku tagay waa jumhuurta wey xanafiyadu iyagu guud ahaan musaaqaadkao dhan waa diidaan xanafiyadu iyagu dhammaantood musaaqaadka waa diidaan oo musaaqaadku noocuu doonaba xataa geetimiraad ha noqdo waxa weeye ma ogola meel adag bay iska taageen waayo waxay yidhaahdeen mushqaayadda soo baxaysa mid loo og yahay maaha geedahan ka shaqee mushqaayadaaduna waa waxa ka soo baxa waxaa laga yaaba waxa ka soo baxa inaan waxa weeye aanay waxbaba ka soo bixin baa laga yaaba wax la damaanad qaadaya maaha xanafiyadu iyagu waa diidaan laakiin qowlkoodu waa daciif shaaficiyadu qowlka jadiidka imaamu shaafici laga soo naqliyey madhabtuna ay qaadatay waxa uu yahay in waxa weeye musaaqaadku uu ku bannaan yahay waxa weeye geetimireedka iyo cinabkoo keliya inuu ku bannaan yahay wixii ka soo hadhay sida tiinka iyo fawaakihda la midka ah inaanu ku bannaanayn bay ku tageen tana waxay u daliishadeen masaladu asal ahaan wax la ogol yahay maaha marka waa in lagu kaaftooma wixii daliil uu sheegay marka timir baa la sheegay cinabkuna in badan oo axkaamta ka mida waa kala mid isagana waa la haleeshinaya waa looga qiyaas qaadanaya wixii kalena wuxuu baaqi ku yahay asalka oo ah
inaanay bannaanayn ayuu baaqi ku yahay. khulaasatul qowl, qowlka xooga badani waxa uu yahay musaaqaadku midho kasta waa ku bannaan yahay, midho kasta waa ku bannaan yahay. cumuumka xadiidkana waa loo daliishanayaa min thamarin midhaha waxa weeye loo daliishanaya. amaa musaaracada iyada khilaafkeedu aad buu u xoog badan yahay. waa dhulkii bannaanaa in cid loo dhiibo, ciddaasina ay ku shaqayso, midhaha ka soo baxayana la kala qaybsado. musaaracada jumhuuru ahlilcilmi waa diideen oo waxay ku tageen inaanay bannaanayn haddii qaabkaa loogu shaqaynayo. masaladuna waxay ku dhisan tahay musaaracada waxa loo yaqaano, musaaqaadkuna waa la mid. ma baabu lijaara mise waa baabu almushaarakaat ayaa la ysugu hayaa. ma heshiiskii labada qof ay wadaagayeen wax wada yeelanayeenba oo sharcigu uu fududeeyo, mise waa kira cid la kiraysanayo oo iibka la mida oo waxa la isku kiraysanayo iyo muddada loo baahan yahay in la cayimo. khilaafku taasuu ku dhisay. haddii la yidhaahdo waa ijaaro, waxay u baahan tahay shuruuddeeda in la adkeeyo oo ay ka mid tahay qofka waxa lagu kiraysanayaa inuu cayimay. lama ogola cid haddaad kiraysanayso mushqaayadii inaad ka dhigto wax baktiya nasiiba. dukaankaa iiga shaqee, muddo bila iiga shaqee, 30 cisho markay dhammaato ayaa wixii ka soo baxa wax kaa siinaya, boqolkiiba intaasaan kaa siinaya. lama ogola hadday ijaaro tahay. waxaa la ogol yahay in la yidhaahdo dukaanka muddo bila iiga shaqee, waxaadna leedahay $100 ama $200 ama $500 baan ku siinaya oo madmuuna. marka waxay leeyihiin jumhuurtu, waxay leeyihiin caqdigani waa min baabi lijaara. ijaara haddii ay tahayna lama ogola in la yidhaahdo geedihii ka shaqee ama beertii ka shaqee, waxa ka soo baxana boqolkiiba intaasaad leedahay, lama ogola. waa haddii la yidhaahdo waa baabulijaara. ta labaad, waxay kaloo ka dhaliyeen caqdigu inuu laazim yahay oo heshiiskan haddii la galo waxay yidhaahdeen waa ijaaro, in laga baxa lama ogola. luzuumna waa ka dhaliyeen. waxay kaloo ka dhaliyeen muddaduna inay cayiman tahay oo muddo laysla og yahay waa inay tahay sanad, 2 sano iyo wixii la mida. muddo cayimanna waa in la cayimaa. waxyaabahaasoo dhan waxaa keensanaya in la yidhaahdo waa baabulijaara, waa wax la kiraysanayo. laakiin saxiixu waxa weeye wixii ay ka soo reebeenna daliil bay uga soo reebeen oo musaaqaadkoo kale waxay u banneeyeen waa ijaara bay leeyihiin. laakiin maadaama daliilku inoo tilmaamay, daliilka looga soo reebaya oo looga soo istinoonaya lidaliil. iyadoo xanafiyada aynu sheegnay laftoodu taa inay u diidaan, iyadoo kiradii aan la cayimin ay u diideen. laakiin jumhuurta kale adiladay tixgeliyeen, waxay leeyihiin waa baabkii kirada. laakiin maadaama nabigu calayhi salaatu wasalaam ahlu khaybar uu kula macaamilay musaaqaat, uu kula macaamilay, way bannaan tahay mucaamalada noocaasa. waxay ka dhigeen baab istinaa bay ka dhigeen, asalkii laga soo reebay. ma layla socda? ya naam. musaaracada aynu dib ugu noqonno. musaaracada jumhuurtu waa diideen, jumhuuru ahlilcilmi waa diideen. waxay dhahdeen lama ogola. musaaracaduna waa dhulkii bannaanaa qof in loo dhiibo, kaasina dhulkii uu falo oo uu beero, wixii ka soo baxana la kala qaybsado. waxa ka soo baxaya xaaladaha ka soo baxaya. xaaladahaasaynu sheegaynaa. xaaladaha noocaasa markaynu qaybqaybinaynu mid walba xukumkeeda sheegaynaa. horta asalku wuxuu ah dhulka cidii iska leedahay ee bannaan ee hadda aanu waxbaba uga baahnayn, asalku wuxuu ahaa walaalkii inuu siiyo. gobonnimadu waxay tahay sida axaadiistu ay inoo tilmaamayso, dhulka hadda aad ka kaaftoomayso walaalkaa inaad siiso si uu ugu shaqaysto wax ugala soo baxo. asalku waa sidaas. axaadiista saxiixaynka ku timi, man kaanat lahu ardu falyazracha aw liyamnaxa akhaahu fain abaa falyumsikha. ninkii dhul bannaan iska leh ha fasho oo dhulka waxa kala soo baxo,
haddii kale walaalkii ha siiyo si walaalkii wax ugala soo baxo. hadda maaha dhulkii in la siinayo ee waxa la siinaya manfacadeeda la siinaya, dhulkan adaa iskale. walaalkii ha siiyo si walaalkii wax ugala soo baxo. hadduu labadaaba diido falyumsikha, dhulkiisa ha haysto. asalku sidaasuu ahaa. laakiin markii dambe waxa la waasiciyey qofku dhulkii uu lahaa inuu dadka ka kireeyo. wuxuu kaga kiraynayaa waa qaybo. haddii ay tahay kaash way bannaan tahay, xadiiska soo socda inuu tilmaamay kaash inuu kaga kireeyo. dhulkaygan qaado, waxna kala soo bax, waxaad isiisaa bishiiba lacag intaa leg isii, sanadkii lacag intaa leg baan kaaga kireeyey. ta noocaasa waa laysku waafaqsan yahay. faama shayun macluumun madmuun falaa ba'sa baa inoo soo socoto. xaaladda noocaasi waa xaaladaas. xaaladda labaad, dhulkii in lagu kireeyo cunto waxa weeye la og yahay oo macluuma, cunto la og yahay. dhulkaan kaa kiraynaya, waxaanan kaa doonayaa sanadkii 100 kiilo oo qamadiya ama heeda ayaan kaa sugaya. heedaasi ha noqoto mid waxa weeye wixii dhulka ka soo baxayay nooceeda ha noqoto, ama nooc ka duwan ha noqoto, oo dhulka wixii ka soo baxaya laga filanaya waa heed. waxa laga sugayaa ninkuna waa qamadi, ama ha waafaqsanaato wax la cayimay oo dimadiisa ah, oo hadduu doono meel kale uu ka keenayo. ta noocaasa in lagu kireeyo jumhuuru ahli lcilmi waa banneeyeen. shaaficiyada iyo xanafiyadu, xanaabiladu waa banneeyeen. waxa diiday maalikiyada ayaa diiday cunto in lagu kireeyo. maalikiyada ayaa diiday. cuntadana khilaafkaasaa ku sugan. maalikiyadu waxay daliishanayeen xadiidka raafic riwaayaadkiisa waxa ku yimi waacaami lmusama, cuntadii la magacaabay in lagu kireeya in la diiday. waa xadiidka inoo soo socda insha allahu tacaala. tan noocaasna khilaafkaasaa ku sugan, laakiin waxaa loo badan yahay inay bannaan tahay baa loo badan yahay. culimmadii bannaynaysa masaladan badankoodu waa banneeyeen. waa cunto cayiman in lagu kireeyo. qadiyada saddexaad waa wixii ka soo baxayay qayb ka mida oo cayiman, iyadana waa laysku waafaqsan yahay inaanay bannaanayn. dhulkaas aan leeyahay ee 10 balooda falo oo ku shaqayso, laakiin nuskaa xiga, wajhada xiga ee calaamadaa leh, wixii ka soo baxaanaa leh. nuskaa kalena ka shaqeeyo, wixii kaaga soo baxaadaa leh. yacnii dhulkii in la cayimo ama geedihii in la cayimo, waxa weeye ta noocaas iyada waa laysku waafaqsan yahay inaanay bannaanayn bilijmaac. waa muxaram. waa dhulkii qayb ka mida in la cayimo. qaybta afraad waxay tahay dhulkii in lagu kireeyo wixii ka soo baxayay oo nisba ah. wixii ka soo baxaya la socda labaynu u kala qaado. wixii ka soo baxaya hadday nisba tahay, waa tanaynu hadda ka hadlayno. wixii ka soo baxaya hadday cayiman tahay oo buqcaddaa wixii ka soo baxa ku shaqee, inta kale wixii ka soo baxana anaa leh, iyada waa laysku waafaqsan yaho ma bannaana. laakiin hadday nisba tahay, dhulka ka shaqee, wixii ka soo baxana 10% adaa leh, 10% intaana anaa iska leh, laakiin wax cayiman aanay ahayn, oo dhulka meel kastoo ay u tahay wixii faa'iide ka soo baxa la isu geynayo, kana uu yeelanayo 10% intaa, kana 10% intaa. ta noocaasa jumhuuru ahli lcilmi waa diideen. jumhuuru ahli lcilmi xaalada noocaasa waa diideen. waa waxa musaaracada loo yaqaano. jamaahiiru ahli lcilmi waa diideen, ma bannaana bay yidhahdeen. waayo waataynu soo tilmaannay inay yidhaahdeen waa kiro. kiraduna ma bannaana inay noqoto wixii soo bixi doona, nisbaba haba noqoto hadday doonto. waxa weeye lama ogola. halkaasay ku dhisayaan. shaaficiyadu waxay banneeyaan hadday musaaqaadka ay tabac u tahay. hadday tabac u tahay, sida xadiiskan laga fahmayo, nakhla khaybara wa ardaha, yacni asalku wuxuu ahaa oo meesha lagu yaqaanay geetimireed baa lagu yaqaanay, oo khaybar ay caan ku ahayd. marka nabigu wuxuu kula heshiiyey geetimireedka ayaa asala, waa musaaqaadkiiyo isagu waa bannaany. dhul bannaan in wax laga beero, dhulkii ahina wuxuu la socdaayo tabac u yahay, geedaha ayuu tabac u yahay.
tanoocaas shaafiiciyadu waa baneeyaan musaaracad hadii ay tahay waxa weeye mid tabac u ah musaaqaadka oo waxa la gelayaa heshiis baa la gelaya geedaha iga shaqee waa inay meesha geeda jiraan meelaha banbanaana inaad wax ka beertana iyadana heshiis baan kugula gelaya marka meelaha bannaan in la beeraa waa musaaraco hadday musaaqaatu la socdo min baabi tabac waa u bannaan tahay bay shaaficiyadu leeyihiin laakiin asal ahaan iyada asal in laga dhigo oo bilow ahaan lagu heshiiyo oo dhul bannaan in wax laga beero lagu heshiiyo tan noocaasa waxa weeye ma ogola shaaficiyadu ma ogola xaaladda noocaasana waxaan leenahay raajixeedu waxa uu yahay sida adiladu ay tilmaamayso inay bannaan tahay xadiidkan cabdulaahi bni cumarna waa loo daliishanaya caamala ahla khaybar bishatri ma yakhruju minha min amarin aw zarcin amar waa musaaqaadkii zarcinna waa musaaracadii lafdiga kalena waa inoo tilmaamaya nakhla khaybara wa ardaha asal ahaanna waxaynu u daliishanaynaa qaacidada guud oo ah inay bannaan tahay waxaa kaloo loo daliishanayaa musaaqaadka iyo musaaracadu labaduba inay isku baab yihiin wax lagu kala qaado lagu kala soocaa meesha ma ahaanin mar walba tacab iyo shaqo ayaa meesha la gelinaya geedku haddii waxa weeye uu taagan yahay oo musaaqaad lagu samaynayo midhuhu waa wax la filayo oo la qiyaasayo dhulka marka la beerayana waa la mid inay wax ka soo baxaan waa wax la filayo oo waxa weeye la qiyaasayo marka in lagu shaqeeyo hadday tahay nisbo ama percentage ay tahay waxaan leenahay raajixu waxa uu yahay inay bannaan tahay baa raajixa markaynu shaaficiyada ka hadlayno shaaficiyadu waxay kala qaadaan musaaraca iyo mukhaabara labaduba waa isku macno laakiin waxay ku kala qaadaan siday u badan yihiin madhabtu ay u badan tahay ee muctamadka ah labadaba macnaha isu keenaya waxa uu yahay musaaraco iyo mukhaabaro waxay tahay qof baa dhul wuxuu u dhiibayaa cid falaysa wixii ka soo baxayayna waa kala qaybsanaya marka musaaracana waa la yidhaahdaa mukhaabarana waa la yidhahda marka dhinaca laga eego laakiin shaaficiyadu qowlkooda muctamadka ah waxay ku kala qaadeen musaaracadu waa haddii midhihii uu keenayo kii dhulka lahaa waa musaaraco oo iyadu way ka sahlan tahay hadday musaaqaadka la socoto iyadu waa bannaan tahay mukhaabaraduna waa in midhihii uu keenaya kii dhulka ka shaqaynaya inta kale waa ka simanya midhihii waxa keenaya kii dhulka ka shaqaynaya ta noocaasana raajixu waxa uu yahay inaan lagu kala qaaday oo labaduba ay isku xukum yihiin dhulkii wixii ka soo baxayay oo percentage inuu bannaan yahay ayaa saxiix u yahay waxaana u daliila xaaladda mukhaabarada shaaficiyadu ay ku sheegayaan xadiidkan laftiisa ayaynu ka faa'iidaysanaynaa calaa an yactamiluuha min amwaalihim yani yahuuddii waxa lagula heshiiyaa dhulkii inay ka shaqeeyaan musaaraco iyo musaaqaat labadaba uga shaqeeyaan waxaana lagula heshiiyey xoolaha ay gelinayaan oo uu ka mid yahay siidhkii uu ka mid yahay inay iyagu inay keenayaan waata shaaficiyadu mukhaabarada ay ku sheegayaan ee xaal laba waxa weeye aanay ogolayn qowlkooda waxa weeye muctamadkee loo badan yahay aanay ogolayn laakiin raajixu waxa uu yahay wax farqiya inaanay u dhaxayn kii dhulka iska lahaa ee nin kale u dhiibaya si uu u beero ama u falo inuu isagu siidhka uu keeno ama ka kale inuu siidhka keeno labaduba waa isku xukum haddii wixii ka soo baxayay nisba ahaan uu wax ku yeelanayo waxay noqonaysaa mudaaraba ayay noqonaysaa mudaarabadii hadda aynu ka soo hadlaynay farqiga udhaxeeya muxuu yahay inaan kaash kuu dhiibo oo aan ku idhaahdo kaashkan inoogu shaqee faa'iidada ka soo baxdana 10% baan leeyahay iyo inaan dhul bannaan kuu dhiibo iyada lafteedu waa xoolo oo aan ku idhaahdo dhulka inoogu shaqee oo inoo beer wixii ka soo baxana 100% intaasaad leedahay wax farqiya uma dhaxeeyo saxiixuna waxa uu yahay
heshiiskani inuu yahay cuquudii shuraakada inuu yahay labadan qofna ay wax ku shuraakoobeen midina uu dhulka leeyahay midina uu leeyahay tacabka iyo shaqada uu leeyahay wixii kale ee curfiga uu keensanayo hadday siirka tahay iyo wixii la mida labada hadba kii bixiya wax saameyna ku yeelan mayso masaladan sida xooga badan kulle hadalka waa sii socdaa insha allahu tacaala intaasaynu maanta kusoo koobayna hada wallahu aclam sal allahu wasalam cala nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalim